madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanya ayaa xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday dalka Masar kuwaasoo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa dalka Soomaaliland shirkaasi oo muddo qaatay ayaa intii uu socday waxa lagaga wada hadlay cilaaqaadkii xoogana ee u dhaxan jiray Soomaaliland iyo Masar madaxweynaha Soomaaliland ayaa uga warramay wafdigaasi sooyaalka taariikheed ee Soomaaliland ay soo martay abaaraha baasan ee dalka ka jira waxaanu madaxweynuhu ka codsaday in arrinta abaarta ay door muuqda ka qaataan Masar waxaanay ballan qaadeen inay wax kala qaban doonaan Soomaaliland arrimaha ay ugu horeeyaan abaarta waxbarashada ganacsiga iyo maalgashiga beeraha iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah markii laga soo baxay kulankaasi ayaa waxa si wada jira warbaahinta ula hadlay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo ganacsiga iyo safiirka wafdigaasi hogaaminayay kuwaasoo ka warramay waxyaabaha kulankaasi lagaga wada hadlay saaka markii la kulmay madaxweynuhu wuxuu soo qaaday xiriirkii iyo cilaaqaadkii taariikhiga ahaa ee naga dhaxeeyay inankiya Masar wuxuu kaloo kala hadlay amba uu sheegay geedi socodkii siyaasadeed ee Soomaaliland wuxuu aad ugu nuuxnuuxsaday abaarta baaxsan in saamaysay wadanka wuxuu ka codsaday in arrinka ay wax naga qabtaan waxay ku ballan qaadeen arrinka ay wax naga qaban doonaan insha Allah biidnillaahi kariim waxay naga sugeen inuu soo gudbino baahideena waxa kaloo ballan qaadeen inay wax naga qabtaan xagga tacliinta isla markaana iskaashi inuu ka sameeyno xagga ganacsiga xagga beeraha xagga maxaan ilaahdaaye nabadda laftigeeda marka intaaba runtii way naga ballan qaadeen maantii wafdi baaxadda loo masaarida inooga yimaado markii ugu horreysay dalkeena yimaado waxay aad ugu bogeen runtii nabadda iyo deganaanshaha dalkeenu martaqaana ku sugayay maanta arrimo badan waa la isla soo qaaday oo ka horeeyo ganacsiga iyo maalgashiga ay ku jiraan beeraha sidii wax looga qaban lahaa xoolaha arrimaha ii sheegeen biyaha waxbarashada sidii ay u dhisi lahaayeen ama ay kor ugu qaadi lahaayeen aqoonta iskuulada iyo jaamacadaha Soomaaliland waxay ballan qaadeen inay soo diri doonaan professor ku takhasusay noocyada kala duwan ee cilmiga oo ay ku caawin doonaan jaamacadaha Soomaaliland waxay sheegeen in iskuulo dhisi doonaan sanadkiiba ugu yaraan 2 ilaa 3 iskuul oo ay ka dhisi doonaan dalka Ambassador Walid Ismail oo wafdigaasi ka socday dalka Masar hogaaminayay kana hadlay kulanka ay la qaateen madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu yiri privilege of meeting His Excellency the President of Somaliland waxaanu ka wada hadalnay madaxweynaha Soomaaliland iyo mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ku weerinaysay kulankaasi sidii labada qaran ee walaalaha cilaaqaadkooda loo sii xoojin lahaa insha Allah waxaan rajo fiican ka qabaa in wada xaajoodkaasi uu sii socon doono gaar ahaan ganacsiga beeraha xoolaha caafimaadka waxbarashada iyo waxyaabaha kale ee daruuriga we would like to see one of the centers of East Africa, whether be it in trade, agriculture, livestock, health, education. sidaasina waxa yiri safiirka dawladda Masar u qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo fadhigiisu yahay dalka Kenya magaalada madaxdiisa Nairobi Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishanka qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa